kulankan oo ay isugu yimaadeen xubnaha xisbiga Samadoon oo qayb ka ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayay kaga arinsadeen xubnaha guddiga fulinta ee xisbigan arrimo ku aadan isbahaysiyo ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya arrimaha doorashooyinka xasiloonida siyaasadda arrimaha dastuurka iyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland gudoomiyaha xisbiga Samadoon Dr. Cabdinuur Maxamed Yuusuf ayaana warbaahinta la wadaagay kulankan iyo waxyaabaha ka soo baxay xisbiga Samadoon wuxuu cadeynayaa inuusan ka mid noqonin isbahaysyada qaar ka mid ah axsaabtu ay sameysteen wuxuuna beeninayaa sheegashooyinka ku aadan arrintaas. xisbiga Samadoon wuxuu ugu baaqayaa xisbiyada siyaasadda inay ka shaqeeyaan sidii dalka doorasho uga dhici lahayd oo aysan sabab ugu noqon in doorashadu qabsoomi weydo. arrimaha doorashooyinka xisbiga Samadoon wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyada isdaba joogga ah ee ka kala imaanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka axsaabta qaranka iyo beesha caalamka ee ku saabsan qabasho doorasho xilligeeda ku dhacda oo ay axsaabtu ku tartamaan. xisbiga Samadoon wuxuu u soo jeedinayaa dowladda inay samaysato xisbiga ay uga qayb qaadan lahayd doorashooyinka si meesha uga baxdo tuhunka ku aadan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda. xisbiga Samadoon wuxuu ugu baaqayaa baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya inay dedejiyaan meelmarinta sharciga doorashooyinka oo muddo badan hor yaalla. xisbiga Samadoon wuxuu cambaareynayaa ficilada iyo kicinta xasilooni darrada siyaasadeed oo ku dhisan dana gaar ah oo aan u adeegaynin danaha shacabka iyo qarannimada dalka. xisbiga Samadoon wuxuu hoosta ka xariiqayaa in xasilooni siyaasadeed ay door weyn ka ciyaari karto qabsoomidda doorashooyinka la-aanteedna ay sababi karto dib u dhaceeda. xisbiga Samadoon wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xisbiyada dalka in la wada ilaaliyo deganaanshaha dalka dastuurka dalka lagana fogaado wax kasta oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed. arrimaha dastuurka ugu dambeyn xisbigu wuxuu cadeynayaa in ilaalinta iyo ku dhaqanka shuruucda dalka ay tahay mas-uuliyad wadareed saaran dhammaan saamileyda siyaasadda dalka. xisbigu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay dardar geliso dhammaystirka dastuurka si taas loo gaarana waa in dib loo bilaabo wadahadalladii iyo wadaxaajoodkii Somaliland. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Samadoon Sheekh Isxaaq Geesdheere ayaa sheegay in loo baahan yahay in xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ka digtoonaadaan waxyaabo horseedi kara in dalka dib u dhac u galo. dowladda Soomaaliya waxaan leenahay waa dowladda dalka waa inay ka shaqeysaa sidii ummadda ay isku keen lahayd mataqaanay garba ay ugu raarin lahayd shacabka ayadaa laga rabaa. taas waa mada dowladda weey doorka ay ku leedahay shacabku weey. mada kale waxaan leenahay nimanka hadda oo madaxweynayaasha hore oo ka qayb galay shirka Kismaayo waxay ku baageen waan maqlaynay waxayna sheegeen in xisbiyada dhammaan ay midaysan yihiin afkooda ay ku hadlayaan. xisbiga Samadoon kuma jiro kuwa ay magacooda ay ku hadleen. xisbiga Samadoon waa xisbi isbahaysi idna aan la galin waa weli oo taagan wuxuuna taageersan yahay shacbiga Soomaaliyeed wixii dan u ah. hadday ay khilaafaad siyaasadeed laga sameeyo dalka doorashada ma dhacayso. marka doorashadii si ay u dhacdo markaa waxaa la rabaa in nabadgelyada amniga la sugo si dalka hore loogu sii socdo dowladnimada taame loo gaaro. marka insha Allah xisbiga Samadoon ujeedada uu leeyahay waa taas. mu'aarad kana siis fiiri mu'aaradnimada naftirkeeda waa in la fahmaa loo baahan yahay. xasan Kahye, Som News TV, Muqdisho.